bilowga filimka waxaa arkaynaa wiilkan oo lagu magacaabo Goku waa wiil dugsiga sare dhigta kuna nool tuulo yar isaga iyo awowgiisa oo ah nin khibrad weyn u leh ciyaaraha karateyga. Awowgiisa ayaa u sheegay Goku sheeko dhacday 2000 oo sano ka hor markaas oo dhulka imaaday cadow weyn oo lagu magacaabo Piccolo waa nin shar badan oo doonayay inuu dunida dhan uu tirtiro. Laakiin Piccolo kaligiisa ma uusan ahayn waxa kaloo caawinayay bahalkan uu saga samaystay oo lagu magacaabo Osara. Si loo joojiyo Piccolo waxaa la soo qaaday 7 kubadood oo sixir ah oo la yiraahdo kubadaha Dragonka kuwaas oo lagu xiray si uusan mar kale u soo noqonin. Awowgiisa markuu sheekada intaas uu u sheegay Goku wuxuu yiri wax badan ayaad ogaan doontaa marka aad gaarto 18 sano. Galabtii waxay bilaabeen in ay qaataan tababar adag waxay ku tartamayeen xarig yar qofkii ugu horeeya ee dhulka taabta ayaa laga badiyay. Markii ay dagaalka bilaabeen Goku wuxuu isku dayay in uu khiyaano awowgiisa wuxuuna ku diray cayayaan si uu u mashquuliyo duqa. Markaasna wuxuu isku dayay inuu dhulka uu ka tuuro. Laakiin awowgiisa ayaa si dhaqso leh isku celiyay wuxuuna isticmaalay farsamo cajiib ah oo Goku ka dhigtay mid guul dareystay. Kadib markay nasteen Goku wuxuu bilaabay inuu noloshiisa uga sheekeeyo. Wuxuuna u sheegay in dugsiga lagu dhibo oo saaxiibadiisa aysan ixtiraamin. Awowgiisa ayaa u sheegay in uu ka duwan yahay dadka kale. Markuu Goku uu rabay in uu baxo, awowgiisa ayaa istaajiyay oo siiyay kubad dhalaalaysa isagoo ku leh dhalasho wacan tani waa hadiyadaada. Waxa kaloo u sheegay in uu waqti dheer uu ilaalinayay uuna sugayay waqtiga saxda uu siin lahaa. Wuxuu u sheegay in kubadan lagu magacaabo kubada mastuulaaga isla markaana ay leedahay awood sixir. Goku si fiican uma fahmin hadalka awowgiis, laakiin wuxuu ballan qaaday inuu si fiican u ilaalin doono. Subaxdii xigtay, Goku wuxuu iskoolka ku aaday baaskiilkiisa. Nin la yiraahdo Fowler ayaa si ula kac ah ugu dhuftay gaarigiisa wuxuuna burburiyay baaskiilkiisii. Fowler waa ninka mar walba dhibaateeya. Wuxuuna diiday in uu raali geliyo. Goku wuu xanaaqay, laakiin wuxuu isku dayay inuu istajiyo. Waxaa wada hadalkooda ka soo dhexgalay gabar lagu magacaabo Kai. Isla markaas waxaa ogaanaynaa in Goku uu jecel yahay Kai. Marka sida darteed way la xumaatay in agyeeda uu dagaal ku galo. Fowler ayaa gardaraysanaya Goku si ay u wada dagaalamaan, laakiin Goku wuu is-celiyay isagoo xasuusan hadalkii awowgiisa oo ahaa karateyga ha u isticmaalin in aad dadka ku dhibaatayso. Ugu dambeyntii Fowler wuu iska tegay. Kaina way la yaabtay Goku waxa uu sameeyay. Dhanka kale Piccolo ayaa ka soo baxay xabsigii sixirka wuxuuna bilaabay inuu burburiyo magaalooyin fara badan. Wuxuu la socday haweeney gacan yare u ah waxayna raadinayeen 7 kubadood ee mastuulaaga. Mid ka mid ah kubadahaasna waxaa hayay Goku. Markaas Goku weli ma oga khatarta ku soo socota wuxuuna sii waday nolol maalmeedkiisa caadiga ah. Iskuulka dhexdiisa Goku wuxuu ku mashquulay daawashada Kai halkii uu macalinka uu dhageysan lahaa. Markuu macalinku su'aal uu weydiiyay Goku wuxuu ku jawaabay isagoo ka sheekeynaya hadal awowgiisa uu u sheegay kaasoo ku saabsan dad erka ka yimid oo 2000 sano ka hor doonayay inay dunidan burburiyaan. Ardaydii fasalka oo dhan ayaa ku qoslay. Markii xiisada fasalku ay dhamaatay Goku wuxuu arkay Kai oo isku dayaysa inay furto sanduuqeeda markaasuu caawiyay isagoo isticmaalaya xooggiisa qarsoon. Sanduuqii oo dhan ayaa furmay hal mar Kai waxay garatay in tani aysan ahayn wax caadi ah. Markaasay la kulantay Goku. Waxay ku casuuntay xafladeeda habeenkaas. Gokuna si degdeg ah ayuu ku aqbalay. Markuu guriga uu ku laabtay awowgiisa wuxuu u diyaariyay cunto laakiin Goku ma uusan danaynaynin wuxuuna ku mashquulay isdiyaarinta xafladda Kai ay ku casuuntay. Isagoo aan macsalaamaynin awowgiis ayuu ka baxay guriga. Markuu Goku xafladda uu tagay dhalinyaro kale ayaa isku dayay inay la dagaalaan laakiin wuxuu ka fogeeyay inuu dhaawaco isagoon qofna taaban ayuu ku qasbay inay iskaraacaan. Ugu dambeyntii dhammaantooda dhulka ayay ku dhaceen waxaana meesha yimid Fowler oo isna isku dayay inuu ku dhufto bir balse wuu ku guuldareystay. Kai aad bay ula dhacday sida uu Goku u isticmaalayo awoodiisa sida caqliga ku salaysan markaasay la gashay xafladda. Laakiin intii uu halkaas joogay Goku wuxuu dareemay wax aan caadi ahayn qalbigiisa ayaa gilgilay. Isla waqtigaas Piccolo ayaa weeraray guriga awowgiis si uu u helo kubadda mastuulaaga. Laakiin markuu ogaaday inaysan meesha yaalin wuxuu dumiyay guriga oo dhan isagoo Goku awowgiisa uu hoos galay burburka guriga dumay. Markaasi ayaa dayaxu si lama filaan ah u bedelay. Markaas ayuu Goku wuxuu dareemayaa cabsi weyn qalbigiisana wuxuu u sheegayaa in awowgiis uu ku sugan yahay xaalad halis ah. Isla markiiba wuxuu ka tegay Kai isagoo leh macsalaamo mar kale ayaan kulmeynaa wuxuuna u orday gurigiisa. Markuu gaaray wuxuu arkay gurigoodii oo gebi ahaanba uu dumay. Wuxuu si degdeg ah ugu dhex orday si uu u badbaadiyo awowgiisa oo hoos yaala dhismihii dumay. Awowgiisa wuxuu u sheegay in waqtigu yar yahay wuxuuna ku yiri Piccolo wuu soo laabtay adiga kaliya ayaa joojin kara. Waa inaad heshaa 6 kubad ee mastuulaaga kale si ay u noqdaan 7 ka hor inta uusan Piccolo uusan helin oo uu dhulka ku burburinin. Wuxuu u sheegay in aanu kaligiisa ku guuleysan doonin sidaas darteedna uu u baahan yahay inuu raadsado saaxiibkiisii hore iyo macalinkiisii Roshi oo degan magaalada Bazu. Halkaas ayuu ka heli doonaa caawimaad iyo tababar cusub. Kadib markii uu u sheegay awowgiis waa uu dhintay. Goku aad buu u murugooday wuxuuna bilaabay inuu guriga hagaajiyo si uu u baxo. Gabar aan la garanayn ayaa soo gashay. Waxay isku dayday inay toogato balse way la weyday waxaana bilaabmay dagaal. Gabadhii waxay tiri qof ayaa xaday kubad oranji ah oo leh 5 xidigood. Aniga garanaya inaad adigu tahay tuuga xaday. Goku wuu yaabay wuxuuna u sheegay aniga kubadda aan haysto waa kubadaha mastuulaaga oo uu awowgay i siiyay waxayna leedahay 4 xidigood ee ma ahan midda aad sheegayso. Markay hubisay way rumaysatay oo way raali gelisay. Kadibna way sheekaysteen. Gokuna wuxuu ogaaday in ay tahay saynisyahan PhD ka wadata arrimaha ku saabsan farsamada hubka iyo sayniska. Waxay kaloo sheegtay inay samaysay qalab raadraacaya kubadaha mastuulaaga kaas oo sabab u ahaa inay Goku ay soo hesho. Markaas Goku wuxuu kula taliyay inay iskaashadaan si ay u helaan 7 kubadood. Markii hore
way diiday balse markii dambe way ogolaatay. Markaana waxaa ogaanaynaa in gabadha lagu magacaabo Bulma. Markaasay labadoodu si degdeg ah u baxeen si ay u raadiyaan Master Roshi. Habeenkii ayay gaareen magaalada Baazu. Goku wuxuu cunayay cunto halka Bulma ay isku dayaysay inay ogaato meesha Roshi uu degan yahay. Goku wuxuu dareemay dareen aan caadi ahayn wuxuuna ku yiri waa meesha saxda ah ee aan rabnay. Bulmana waxay dareentay kubadaha meel u dhow markaasay u oroday inay raadiso. Goku wuxuu isku dayay inuu joojiyo laakiin way diiday. Markaasay galeen guri ay u malaynayeen cidla inuu yahay. Waxay bilaabeen inay baaraan balse guriga ayay galeen wuxuu ahaa gurigii Master Roshi. Roshi oo hurda ayuu maqlay markaasuu qayliyay isagoo leh tuug iga soo gaara wuxuuna la dagaalay Goku. Intay dagaalamayeen Bulma ayaa isku dayday inay kala qabato laakiin Goku si kama ah ayuu u dhuftay. Roshi wuxuu arkay farsamo uu garanayo wuxuuna yiri farsamadan waxaa isticmaali jiray Gohan. Markaasuu ogaaday in Goku uu yahay wiilkii saaxiibkiisa uu dhalay. Wuxuu farxay markuu maqlay arintaas laakiin isla markiiba wuu murugooday markii uu ogaaday in Gohan uu dhintay. Markaas Goku wuxuu uga warramay kubadaha mastuulaaga iyo soo laabashada ninka lagu magacaabo Piccolo. Roshi wuxuu soo bixiyay kubada uu haystay wuxuuna ku yiri waa inaan dhaqso u dhaqaaqnaa oo aan joojinaa Piccolo. Subaxdii xigtay waxay u baxeen safar cusub si ay u helaan kubadaha kale. Roshi wuxuu Goku uu siiyay tababar adag isagoo ku amray inuu ordo isagoo qaadanaya boorsooyin culus halka Bulma iyo Roshi ay ku socdeen gaariga. Markii ay tageen dhismaha dhagaxa ah Goku si lama filaan ah ayuu ula kulmay Kai oo halkaas dagaal faraha kula jirta. Ka hor inta aysan sheekaysan Kai waxay ugu tacsiyeysay geerida awowgiisa. Kadib waxay u sheegtay in ay isu diyaarinayso tartanka dagaalka oo ay rabtay inay u sheegto habeenkii xafladda. Goku ayaa u ballan qaaday inuu u imaan doono tartanka kadibna wuu sii baxay. Intii ay safarka sii wateen waxay ku dhaceen dabin weyn oo uu dhigay nin tuug ah. Tuuga ayaa isku dayay inuu iska dhigo qof fiican. Bulmana waxay isku dayday inay ku qanciso inuu caawiyo. Markii uu lacag ka dalbaday waxay ogaatay inuu isagu dabinka uu dhigay. Roshi ayaa markaas adeegsaday karateegiisa si uu uga soo baxo godka. Tuuguna wuu la yaabay. Kadib waxay ogaadeen in agagaarka halkaas ay taalo kubad kale. Bulmana waxay raadisay iyadoo adeegsanaysa qalabkeedii. Markay heleen kubadii waxay ogaadeen inuu ku yaalo dhinaca kale god holac leh waxaana soo weeraray makhluuqaad si degdeg ah u soo noolaan kara. Goku wuxuu ogaaday in haddii lagu tuuro awoodooda ay dhimanayaan markaasuu isticmaalay jirkooda si uu buundo ugu sameeyo oo uu kubadda u keeno. Laakiin markuu soo celiyay kubadihii mastuulaaga mid ka mid ah gacan yarayaasha Piccolo ayaa soo weeraray oo ka qaaday. Goku si xoog leh ayuu ula dagaalamay wuxuuna dib u helay kubadda. Roshi wuxuu ku yiri waqtigu wuu sii dhammaanayaa waa inaan helnaa maadada sixirka si aan ugu xirno Piccolo. Markaasay u safreen dhismaha sixirka si ay u sameeyaan qaraxyo ay ku adkeeyaan sixirkaas. Dhanka kale Kai waxay ka qayb qaadatay tartanka dagaalka. Mid ka mid ah gacan yarayaasha Piccolo ayaa isu bedelay tartame dagaalka ka tirsan wuxuuna ka daadiyay dhiig intay dagaalamayeen si uu ugu isticmaalo sixir. Kadib wuxuu isu bedelay wejiga Kai oo been ah. Markuu Goku uu tababarayay ninkan Kai iska dhigaya ayaa timid oo isku dayday inay xado kubadihii mastuulaaga. Maadaama ay u ekaatay wejiga Kai ee dhabta ah Goku waa la khiyaanay. Markay baxaysay Bulma ayaa ogaatay in kubadaha mastuulaaga la xaday markaasay iyada iyo tuugii hore oo hadda saaxiibkood ah u soo ordeen. Waxay la kulmeen Kaida dhabta ah waxaana bilowday dagaal adag oo ay adkaatay in la kala garto labadooda. Goku waxaa lagu wereeriyay hadallo been ah wuxuuna si kama ah u dhuftay Kaida dhabta ah markaasna wuu miir beelay. Midii beentii ahayd ayaa baxsatay iyadoo wadata kubadaha mastuulaaga. Markaas ayaa Master Roshi u yimid wuxuuna ku guuleystay inuu Goku dib u soo kiciyo. Goku intuu miir la'aa wuxuu ku arkay awowgiisa adduun kale wuxuuna doonayay inuu sii joogo laakiin awowgiis ayaa ku yiri weli hawshaada ma aysan dhammaanin. Markaasuu Goku soo toosay isagoo xanuun dareemaya. Waxayna u dhaqaaqeen si degdeg ah maadaama Piccolo uu haysto 7 kubad ee mastuulaaga. Markay gaareen Roshi wuxuu isku dayay inuu isticmaalo sixirka Faba balse Piccolo si buuxda uma saameynin. Roshina wuu daalay. Piccolo wuxuu Goku ka dhigay inuu u maleeyo inuu yahay Ozaru waana midka Piccolo uu gacantiisa uu ku sameeyay. Wuxuuna maskaxdiisa ku wareeriyay ilaa Goku uu isu bedelay noocaas oo kale. Isagoo xaaladaas ku jira Goku wuxuu gacmihiisan ku dilay Master Roshi laakiin markuu soo xusuustay hadalladii awowgiisa wuu miirkiisa ayaa dib isu bedelay. Wuxuu si xoog ah ula dagaalay Piccolo ilaa uu ka adkaaday. Dunidii ayaa dib ugu noqotay deganaansho iyo nabad. Si kastaba ha ahaatee Roshi wuu dhintay. Goku wuxuu soo xasuustay in kubadaha mastuulaaga ay rumeynayaan hal rabitaan. Markaasuu rajo uu soo jeediyey wuxuuna doonay in Master Roshi uu dib u soo kiciyo. Isla markiiba mastuulaaga wuu soo baxay wuxuuna Roshi ku soo celiyay sidiisa caadiga ahaa. Dhammaan way ku farxeen laakiin kubadihii mastuulaaga ayaa haddana ku kala firday dunida. Goku wuxuu go'aansaday inuu mar kale uu raadiyo laakiin markan wuxuu rabaa inuu la kulmo Kai marka ugu horeysa. Filimkuna halkaas ayuu ku dhammaanayaa.